kadib geeridii aabaheed bishii February 1952 waxaa si toos ah ugu soo wareegay u talinta boqortooyadii aanay cadceedu ka dhici jirin dadka qaarna ay ku tilmaamaan midii aanu dhiigu ka qalali jirin boqortooyadaasi oo gacanta ku hayn jirtay 4 meelood oo meel dadka dunida ku nool maalin ka mid ah maalmihii ugu qabowga badnaa bisha Juun kadib 16 bilood oo la diyaarinayay ayay 100 milyuun oo ruux tiifiyada caalamka kala socdeen caleemasaarka boqorada da'da weyn ee dalka Britain Elizabeth II waxaana halkaas ka bilaabmay xukunkii ugu dheeraa ee boqor ama boqorada hayso taariikhda Britania dhulka Somaliland oo ka mid noqday dalalka ay boqoradu taladooda qabatay xilliga ayaa waxaa ka anbabaxay wafdi lagu marti qaaday caleemasaarka xafladda boqorada sida uu u sheegay Xaaji Cabdiwaraabe idaacadda BBC-da qaybta dibadaha la hadasha barnaamij taxane ahaa oo ka bixi jiray kaas oo lagu magacaabo Marking Queen Elizabeth Diamond Jubilee Xaaji Cabdi ayaa u sheegay tafatirihii hore ee BBC-da Afrika u qaabilsanayd in maalintii caleemasaarka wadaadaas xataa Hargeysa looga dabaaldegay sidii ka dhacaysay dhulalkii ay boqortooyadu haysatay 66 sannadood kadib markii madaxeeda la saaray taajka St Edwards kaasoo la sameeyay sanadkii 1661 ayay boqoradu ka warantay xafladii caleemasaarkeeda iyadoo noqotay boqor iyo boqoradba ruuxii ugu horeeyay ee reer boqor ka tirsan ee ka warrama caleemasaarka noocaas ah iyo culayska taashkan ka kooban dhagxaanta qaaliga ah ee diamond-ta u badan Is it still as heavy? Yes, it is. It weighs a ton. It's very solid, isn't it? It's difficult to always remember that diamonds are stones, so they're very heavy. Yes. Fortunately, my father and I have about the same sort of shaped head. But once you put it on, it stays. I mean, it just remains itself. You have to keep your head very still. Yes. And you can't look down to read the speech. You have to take the speech up. Because if you did, your neck would break. It would fall off. taajkani inkastoo uu yahay xudunta caleemasaarka boqorada haddana waxaa jira waxyaabo kale oo dhaqan iyo diin ahaan laga soo gaaray kuwaasi oo ay ka mid yihiin seefta boqorada ee qaaliga ah faraantiga la yaabka leh iyo saliidda caleemasaarka inkasta oo ay jiraan dad Soomaali ah oo lagu marti qaaday qasriga reer boqor ee Buckingham Palace haddana weli anigu ma maqal qof halkaas tagay oo u sharaxay sida uu u sharaxay wariye Saleebaan Daahir Afqarshe oo BBC-da ka tirsanaan jiray guriga boqorada marka albaabka laga galo waxa halka hore ee daarada ee ka horeysa daatan qururux yar yar oo marka aad ku soconayso shamax oranaya dabeedna waxa aad gelaysaa gurigii oo khadgifado cas oo aad u qurux badan lagu goglay isla markaana alaabta guriga dhexdiisa taala iyo isla markaa gidaarada waxyaabaha ka soo daldalan ee sanamyada oo kala ah aad ugu fajacayso dadku iyaga oo qof waliba aad yar uu socdo oo isleeyahay uu ka jactadin suurka aad gashan tahay ayaa dadka oo dhammi waxa ka muuqata farxad iyo qurux iyo haybad waxaana jira oo aad marka arkaysaa beerta marka aad madaxeeda soo gaadho koofiyad miidhan oo safan waayo haweenka looma ogola koofiyad la'aan inay ugu tagaan boqorada raguna waxa ay sitaan nin waliba suurkiisii ka ugu qurux badnaa iyada oo marka ragga qaarkii ay sitaan intooda badani suud daba dheer oo maamuus loogu talagalay in loogu tago maalmaha caynkaas oo kale ah ee ninkii nasiib leh boqorada uu u tagayo cabaar markaan meeshii warwareegay ee aan arki waayey ayaan gadaal eegay mise boqoradii oo gashan dhar xamuuradaysan oo aad u qurux badan iyo koofiyad u eg iyo iyada oo marka uu dhinac taagan yahay ninkeedii the Duke of Edinburgh ayaa dabeedna isa soo taagay guriga albaabkiisii marka ayaa dadkii oo dhammi sare joog inta si degdega loogu kacay ayaa koox halka muusiqa ka garaacaysa waxa ay ku dhufteen muusiqada astaanta u ah dalkan Ingiriiska God Save the Queen ilaahu boqorada badbaad
sida loo badan yahay dadku way wada jecel yihiin mansabka maalka magaca iyo maamuuska adduunyo sidaasoo ay tahay laguma waaro weligeed in badan oo la dhowrayay maamuuska u gaarka ah reer boqor iyo boqorada gaar ahaan sida inaanad hadal ilaa ay hadasho wax cunin ilaa ay cunto aanad ugu dhowaan aad faro madhnaan aanad ula tegin iyo si walood u daalan tahay aad istaagto marka ay meel kuugu soo gasho waxaa jira warar ay heleen wariyayaasha xogta durugsan heli kara kuwaasoo helay jadwalka aaska boqorada maadaama ay haddeer da'deeda awgeed geeri sugto iska tahay boqoradan intii ay xilka haysay Maraykan 13 madaxweyne iska bedeleen ingiriiska 13 ra'iisul wasaare soo mareen ee dhalatay 1928 ayaa si faahfaahsan loogu xusay jadwalka min maalinta ay dhimato waxa la samayn doono ilaa iyo maalinta 12aad cidda shaacin doonta geerideeda qasriga ay ku dhimato iyo waxa laga yeeli doono haddii ay dibadda ingiriiska ku dhimato sida loo soo qaadi doono sida madaxda dunida loogu wargelinayo geerideeda kulanka baarlamaanka iyo cidda la wareegaysa jagadeedii Axmed Maxamed Yuusuf telefishinka Ariel Hargeysa